الله naxariisto meel shinniga ka shaqeynayeen xaruntay joogeen way ku hoydeen iyagoo meesha iska joogo ma qolooyin softa ahaa kulay ku soo dhalmaday kolay anaga hadda wixii hebel iyo hebel looma yaqaano laakiin sanan inay ahaayeen aan aragtiisa dadkii wax dhigay dhinacaas bariina ka yimaadeen haddana ay ku laabteen marka nimankan masaakiinta meesha iska joogo ay dileen marka xilli hore ah oo adiga ilaa saacada ka dhaxayda waa xagee waay meesha arrintan xagee ka dhacday iyo waa meel magaalada barigeeda Dhuusamareeb oo u jirta ilaa iyo 16 kilomitir dhinaca tuulada beer Cabdi Faarax ay u dhaweyd waxay ka tusaysay marka eeriyadaas waaye marka waxa waaye meel xaruntiisa maaragtay dadoo xoolo dhaqato ah meelahaas ka jooga niman shaqaalaha ay ahaayeen nimanka marka gacanta xaq daranaha insha Allah naxariis arrintan maxaa keenay dagaalamiya ka jiray meelahaas ay raggan ku dhinteen laakiin sidaan ku qiyaasayno meelaha bariga oo ka sii xagaysa ayaa dagaal beeleedyo ka jireen marka dagaal beeleedyadaas baan u malaynaynaa dadkan inay maaragtay ay kolay wax ana qabiil wax inay raadinayeen laakiin niman shaqaalaha oo meelahaasi mustaqbal ayeen ma ahayn beelaha dagaalaya iyo waxa meesha isku haysta iyo agagan waxa deganba koonfur galbeed ay kasoo jeedeen afartaba marka dan shaqaalanimo meesha u yimid ahaayeen ma ahayn dadkii dagaalayay waxaas shuqul kumana ay lahayn iyagu waay marka raggan ma ka warqabeen in xaaladan cabsida iyo dagaaladan iyo aanooyinkan qabiil ay meesha ka jiraan raggan geeriyooday arrintaas warbixin ma ku siiseen oo adinka ay idin shaqaynayeen xogtaas ma la wadaagteen iyo way la socdeen oo nimanka deegaanka wax ka joogeen intii wax dhacayeen inaad arrintu ayaga ma aynan kusayno wax waaye dadka isdagaalaya iyo midna labada qolaba waxa waaye way sarbi jireen mana aysan hadda ka hor lama dilin ma aynan taaban jirin marka wayna ogaayeen waana sababta keentay kalsoonidaas hore ay qabeen inay meeshooda iska jiiftaan wax ilaa iyo midna qabin marka kolay meesha sidaasaa ka dhacday musiibadaasaa ka dhacday afartuba way dhinteen miya hadda afartuba way dhinteen waayahay marka adinku goormaa tagteen oo meeshii oo arrintan aada ogaateen sidee warbixintiin kusoo gaartay in raggan ay dhinteen oo lasoo weeraray kolay meesha teleefanaha iska wadanka communicationka waa fudud yahay ilaa xilliyadiiba waxaa hadda waan ogaanay laakiin xilli habeenay ee saf dhexaa la weeraray wax qofkii hadda meesha aadi lahaa iyo waxaas waxa waaye maaragtay wax kale ka dhacaana suurtagala halkaas waa berigiyaa la tegay dadka badankiis tageen marka hadda subaxnimadan aan tagnay annaga waana soo qaadnay meydkii hadda meydkian aaseen shirkadda ay u shaqaynayeen ee malabka magaceeda Cabdicasiis wahaan alira wahaan muddo inta lag bay shirkadda la shaqaynayeen malabka raggan dhintay raggan shaqaalaha galgaduud waxa waaye waxay ka shaqeynayaan ama in badan ay malabka ka shaqeynayaan laakiin galgaduud muddo 3 sano ay joogeen qaarkood way kala dambeeyeen laakiin ninka ugu soo horeeyay ilaa 3 sano waa uu joogay ajar kalena waa un mar kusoo beeray